dad waxaan mushaar siinaa 100,000 oo qofood oo Soomaali ah horta cid og ma jirtaa waxaan bixinaa marka ugu horeysa 25 bisha marka la gaaro waxaan bilownaa inaan sii dayno ciidamada mushaarkooda maalmahan xirnaa qasnada haddana waxaan sii daynaa shaqaalaha mushaarkooda maalmo kale la xiraa waxa la sii daayaa raashinka ciidamada ma rabo in arrinta aad uga faalo waxa la sii daayaa shaqa siyaasiyiinta warartan mar kale maskaxdiina dib u celiya 400 milyan dawladan ma lagu rangarayn karaa mushaarka dad waxaan mushaar siinaa 100,000 oo qofood oo Soomaali ah horta cid og ma jirtaa 100,000 weeye waa forsiga dawladda federaalka oo isugu jira ciidan shaqaale dawladeed macallimiin shaqaale caafimaad siyaasiyiin iyo wixii la halmaan 100,000 oo qof markii mushaarkooda laga sugayo dawladdu ay ku dhaqaaqayso horta waxa weeye waxaad ku khasban tahay oo priority number 1 ah mushaaraadkaas in la bixiyo intooda badanna waa ciidan dad badan baa ku dooda shaqaalaha hal la dhimo hadda ustaadka oo kale si fiican buu u sharaxay tusaalayaashu soo qaatay waxa kamid ah caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhalinyarada hoolka aan fadhino aniga waxa la yiri horta anigu inta badan wasaaradda waxaan mas'uul uga ahay qaybta dakhliga iyo guud ahaan marka miisaaniyadda la dejinayo 70 iyo dhowr hay'adood oo garsoor ku jiro oo kala duwan garsoorka hay'adiis kala duwan ayaan wada fariisanaa marka miisaaniyadda la dejinayo oo aan dhageysanaa miisaaniyadooda codsigiis iyo raashinaal ka dambeeya hal mida oo marka aan dhageysano midda kale aan ka xanuun badnayn oo aan ka muhiimsanayna ma jirto hay'adaha dawladdu shaqada ay hayaan waa muhiim jiddan garsoorkuna waa muhiim haddaad waxbarashada dhageysato oo dhalinyarada ciyaalkeena iskuulka 62% aysan iskuulka aadin ciyaalka iskuulka waxbarashada gaaray school age ah oo lagu yiraahdo waxay u baahan tahay inaynu macallimiin u shaqaalaysiino aan bilowno oo caafimaadka dhageysato halkan hoolkan shaqada ku soo noqonaya waxa weeye hospitaalada guud ee dawladda federaalka ugu waaweyn Muqdisho ku yaala waa hospital Banaadir iyo hospitaalka Martini labadaas soo qaadano waxay gaareen in lacag laga dhigo oo dadka fiila charge gareeyo iyo in muxuu ahaaday dawladdu ay qarashka intay siiso wax ka badiso hoolkan dadka jooga oo dhan waxay nagu dhiirigeliyeen wasaaradda maaliyadda ku qabsadeen wax kasta sameeya labada hospitaal shidaalkooda dawadooda mushaarkooda miisaaniyadda kordhiyo dib ugu dara ayagu ma oga wax garsoor ka dhacaya marka dadku markay tay dhageysanayaan ayay arkayaan wixii yaraayo tartiibta hay'adaha kale xataa loogu kordhin jiray ama ay heli jireen u qoondeysnaa inaysan wada heli karin oo marka qaarkood waa ila fadhiyaa gudoomiyihii mushaarkooda kaliya aan ku filnaano oo running costiga hadda meesha uu ka leeyahay marka qaarkood agaasinkan u gudubnaa inaan dhahno noo sii daa waxa weeye waxaad kala dooranaysaa laba daran waxaan bixinaa marka ugu horeysa 25 bisha marka la gaaro waxaan bilownaa inaan sii dayno ciidamada mushaarkooda maalmahan xirnaa qasnada haddana waxaan sii daynaa shaqaalaha mushaarkooda maalmo kale la xiraa waxa la sii daayaa raashinka ciidamada ma rabo in arrinta aad uga faalo waxa la sii daayaa shaqa siyaasiyiinta marka wixii mushaar kugu lahaa ay ka baxaan ayaa bilaabaysa haye korontada iyo electricity iyo biyaha iyo internetka ma ka bixin kartaa hay'adaha dawladda horta waaqiga anaga miisaaniyad ahaan anaga laftii aan ku shaqeynana waxay ahayd in prestation la siiye horta sidaas weeye usoo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka dahabalaas